Guddoomiyaha ismaamulka Mandera ee waddanka Kenya ayaa sheegay balad xaawe ee waddanka Soomaaliya uu ka jiro cudurka COVID-19. Cali Ibraahim Rooba, guddoomiyaha ismaamulka Mandera oo maanta saxaafadda kula hadlayay magaalada Mandera ee xadka dhacda wadamada Soomaaliya Kenya ayaa sheegay in degmada balad xaawe ee dariska la ah maamulkiisa inuu ka jiro cudurka coronavirus. Waxa uu sheegay in lagu soo wargeliyay in deegaanka balad xaawe lagu arkay dad u dhintay cudurka coronavirus calaamada u eg. Waxa uu sheegay in xanuunka deegaanka ka jira uu eg yahay sida coronavirus. Hore ayay dowladda Kenya u sheegtay inay xirtay magaalooyinka xuduudda dhaca ee waddankeeda. Dowladda Kenya ayaa xanibaad gaar ah ku soo rogtay ismaamulka Mandera, waxaana la sheegay in ismaamulka Mandera uu ka jiray cudurka coronavirus. Tirada dadka uu soo ritay coronavirus ismaamulka Mandera ayaa lagu sheegay ilaa iyo 18 qof. Maamulka Mandera oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in 17 ka mid ah dadkii la xanuunsanaa cudurka haatan ay ka bogsadeen. Guud ahaan waddanka Kenya tirada ayaa haatan waxay sii xaqiijinaysaa in ku dhow ilaa iyo 5,000 dadka ka bogsada ayaa lagu qiyaasay ilaa 2,000. Waxaa kaloo isla dhinaca kale dadka coronavirus ugu dhintay waddanka haatan waxay tirada ku sii dhowaanaysaa 128. waa sida lagu sheegay shir jaraa'id oo maalin walba dowladdu ay ku qabato magaalada Nairobi. Hadda caafimaadka ayaa ku warantay in dadka dhintay haatan tiradooda guud ay ku sii dhowaanayso ilaa iyo 100, maadaama tirada haatan ay marayso 128. Degmada Mandera iyadoo la sheegay in Mandera dhinaca kalena ay daris la tahay waddanka Soomaaliya, maadaama balad xaawe iyo degmada Mandera ay saaran yihiin. Balad xaawe ayaa la sheegay xaaladda coronavirus in haatan uu ku jiro. Guud ahaan dhinaca caafimaadka ee balad xaawe ayaa waxa uu yahay mid aad u liito. Maamulka degmada balad xaawe ayaa dhowr jeer ka hadlay in cudurka coronavirus uu ku jiro gudaha degmadaasi, inkastoo dowladda Soomaaliya ay ka gaabsanayso in ay ka hadasho xaaladda caafimaad ee degmada balad xaawe. Guddoomiyaha Cali Rooba oo maanta ka hadlayay shir saxaafadeed uu ku qabtay magaalada Mandera ayuu sheegay in wax u eg calaamadaha coronavirus laga soo wariyay degmada balad xaawe ee gobolka Gado. Mr. Rooba ayaa xusay in maamulkiisa ay gacanta ku dhigeen dad kor u dhaafaya 97,502 qof, kuwaasoo kasoo gudbay marinada kala duwan ee magaalada Mandera. Waxa uu sheegay dad deegaanka kor u dhaafaya 729 qof lagu sameeyay tijaabo guud ee cudurka COVID-19 la xiriirta. Waxa uuna sheegay in dadkaasi laga helay ilaa iyo 18 qof. Waxa uu kaloo xusay in maamulka Cali Ibraahim Rooba ee ismaamulka Mandera ay goobaha karantiilka geliyeen dad kor u dhaafaya 334 qof, kuwaasoo iyagana laga waayay xanuunka COVID-19 ee faraha ba'an ku haya waddanka Kenya. Waxa uu kaloo sheegay Cali Ibraahim Rooba 176 qof, kuwaasoo la sheegay in ay la macaamileen 18 qof ee xanuunka laga helay, iyagana sidoo kale baaritaano caafimaad oo dheeraad ah lagu sameeyay. Waxa uu sheegay in maamulkiisa sidoo kale ay gacanta ku dhigeen 158 qof oo dhinaca kale deegaankaas Mandera soo galay, kuwaasoo iyagana laga waayay cudurka coronavirus. Guud ahaan ismaamulka Mandera waxaa saaran bando kaasoo bilowday wixii ka dambeeyay markii maamulka laga helay cudurka COVID-19 keesas la xiriira. Aadan Barre Ducaale ayaa maanta si rasmi ah xilka aqlabiyadda baarlamaanka ugu wareejiyay ninka dhawaan la doortay ee Amos Kumunya. Kumunya ayaa wuxuu noqon doonaa hogaamiyaha xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya ee Jubilee laga gaarayo doorashada 2022. Shalay lagu go'aamiyay kalfadhi ka dhacay xarunta shirarka ee magaalada Nairobi. Aadan Barre Ducaale oo ka hadlayay xafladii xil wareejinta ee maanta ayaa sheegay in xilkaasi uu soo hayay muddo 7 sano ah, haatanna la joogay xilligii cid kale lagu bedelay. Aadan Barre Ducaale ayaa waxaa xilkaasi loo doortay sanadkii 2013 kadib markii xisbiga Jubilee doorashadii xilligaa dhacday guulo waaweyn ay ka gaareen. Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu dhashay horaantii sanadkii 1969, da'diisana haatan waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 51. Waxa uuna xilkaasi ku wareejinayaa
Amos Kumuya oo dhashay sanadkii 1961 waxaana da'diisa lagu qiyaasaa 58 jir. Waxa uuna dhashay 6dii bishii Maaj sanadkii 1961. Mr. Amos Kumuya, gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka Kenya, xisbiga Jubilee. Kumuya ayaa hore waxa uu soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirkii dhulka iyo deegaamaynta, sidoo kale waxa uu noqday wasiirkii ganacsiga, ugu dambeynna waxa uu noqday wasiirkii maaliyadda waddanka Kenya sanadihii 2006 ilaa 2008. 2008 ayuu xilkaasi iska casilay kadib markii ay ku soo baxday fadeexadii la xiriirtay hoteelkii weynaa ee Grand Regency, kaasoo la iibiyey kadib markii waddanka Kenya ay ka dhaceen qalalaasihii la xiriiray doorashadii lagu murmay ee 2000.